بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي سكوسو دواده وركا شعبك ميديا جروب qodobada warka shacabka media group aan in ku hayno saaxiibayaal waxa kamid ah xiisado dagaal oo ka taagan duleedka magaalada Kismaayo iyo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan Mareykanka oo war ka soo saaray xaalka Galmudug iyo doorashooyinka madaxii Ahlus Sunna wal Jamaaca ee Galmudug oo digniin ka soo saaray doorashada ka dhacaysa Dhuusamareeb qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan xafna uu ka hadlay doorashada ka socota Dhuusamareeb ku soo dhawaada warka shacabka oo qodobadaas iyo qodobo kale oo xasaasi ah aan in ku hayno waa hagaag markale kulan wacan intaan ku bilaabin qodobka ugu horeeya daawadayaasha ama dhageystayaasha waxaan ka codsanaynaa in ay ku soo biiraan shacabka media group oo subscribe dhahaan gambaleelkana ay furtaan leegna ay saaraan sida ay ula socdaan wararka iyo warbixinada iyo barnaamijyada iyo riwaayadaha kala duwan ee halka aan soo gelinayno insha Allah aan ku bilownay qodobka ugu horeeya madaxa xukuumadda maamulka Galmudug sidoo kalena garabka Ahlus Sunna ay u doorteen madaxweynaha Galmudug ayaa waxa uu soo saaray qoraal uu uga digayo qabsoomida doorashada ka socota Dhuusamareeb iyo dhibaatooyinka ka dhalan kara qoraalkan ayaa waxa lagu sheegay in arintan ay masiir ahaan Galmudug ay mugdi gelinayso isla markaasna dad dano gaar ah leh ay qalalaasa ka wadaan deegaanada Galmudug sida lagu sheegay qoraalkan Sheekh Shaakir oo loo diray beesha caalamka ayaa waxa lagu sheegay in hadii ay doorasho ay ka dhacdo Dhuusamareeb dhibaatada ka dhalata ay mas'uuliyadeedu qaadi doonto dawladda Soomaaliya dhanka kalena madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa sheegay doorashada maanta lagu wado inay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb ay tahay mid waxba aysan ka jirin isla markaasna ay tahay mid la soo dhoobay sida uu yiri madaxweynaha maamulka Galmudug waa Xaafi madaxweyne Xaaf ayaa saxaafadda kula hadlay magaalada Tangaalkacyo ayaa sheegay in doorashada maanta ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeb ay tahay mid lagu doortay Axmed Boosto oo mar sheegay in uu yahay madaxweynaha Galmudug ugu dambeyn Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa sheegay in madaxda dawladda Soomaaliya ay dad ka shaqeeya xafiisyada ay ka soo aruuriyeen magaalada Muqdisho isla markaasna ay ka mid noqdeen baarlamaanka Galmudug hagaag wararka shacabka media group ayaad maqlaysaan saaxiibayaal dhinaca kalena safiirka Mareykanka oo fadhiya Soomaaliya Donald Yamamota ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu kaga hadlay xaaladda cakiran ee maamulka Galmudug doorashada la filayo inay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb Yamamota waxa uu sheegay inay si dhow ula socdaan hawlaha ka socda Dhuusamareeb waxaana ugu baaqay in dhinacyada iska soo horjeeda in ay ka fogaadaan wax walba oo rabshado sababi kara isla markaasna la wada hadlo Mareykanku si dhow ayuu ula socdaa waxa ka socda Dhuusamareeb waa uu ka walaacsan yahay hayeeshee waxa ugu baaqaya dhinacyada isku khilaafsan in ay wax walba ay wada hadal ku dhameeyaan ayuu yiri wuxuuna ugu baaqay dhinacyada iska soo horjeeda in ay ka fogaadaan wax walba oo rabshad sababi kara isla markaasna la wada hadlo deegaanada Galmudug waxa xilligan ka jira khilaaf xoogan oo ka dhashay doorashada Galmudug waxaana dad badan walaacay ka muujinayaan khilaafka sii xoogeysanaya iyadoo dawladda loogu baaqayo in la hakiyo doorashada ka socota Dhuusamareeb waa hagaag wararka shacabka media ayaad maqlaysaan saaxiibayaal duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa maalmahan ka dhacayay dagaal u dhaxeeya laba beelood oo isku haysta ceel biyood lagu qoday deegaanka Haadweyne oo 25 kiiloomitir galbeedka kaga toosan magaalada Kismaayo inta la og yahay 5 qof ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay dagaalka ka dhacay iyadoo tirada guud ee dagaalka ay ku geeriyoodeen ilaa iyo haatan inta la sheegay in ay gaarayso 8 qof deegaanka lagu dagaalamay ayaa waxay kala yihiin deegaanka Dalsan Haadweyne iyo Qandal dagaalkan ayaana ah mid soo laalaatay
toddobaadkii la soo dhaafay ayaa dagaalka waxa uu ku bilowday hab dilal gooni ah waxaana isbitaalka magaalada Kismaayo la geeyay meydadka 5 ruux oo ku geeriyooday dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in waan lagu dhexdhexaadinayo labada maleeshiyood beeleed ee ku dagaalamaya duleedka galbeed ee magaalada Kismaayo ay ka socoto halkaasi madaxweynaha Jubbaland ayaa sanad ka hor waxa uu heshiis nabadeed dhex dhigay maleeshiyaadka dagaalamaya deegaanka dalsan iyo deegaano kale ay yeeshee mar kale ayuu dagaalku dib u soo laabtay warkii shacabka media waa naga intaa